Axmed Deer oo ka mid ahaa duuliyayaashii dowladdii militariga ahayd ee uu hogaamiyaha ka ahaa Maxamed Siyaad Barre waxaana 1988kii dowladdii militariga ahayd ee Maxamed Siyaad Barre ay ku amartay inuu duqeymo ka geysto magaalada Hargeysa waxaana waqtigaasi socday dagaal u dhaxeeyay dowladdii Maxamed Siyaad Barre iyo ururkii SNM. Axmed Deer ayaa isagu si cad u diiday markaasi inuu duqeeyo magaalada Hargeysa isagoona si cad uga soo horjeedsaday amarkii ay siisay dowladdii militariga ahayd ee uu isaguna duuliyaha ka ahaa waxaanu diyaaradii uu watay ula goostay dalka Djibouti. Axmed Deer oo hadda ku sugan Hargeysa ayaa waxa uu habeennimadii xalay xarunta dhaqanka Hargeysa kulan kula qaatay qaar ka mid ah dhalinyarada Hargeysa waxaanay dhalinyaradu su'aalo ka weydiiyeen sababaha ku kalifay inuu tallaabadaasi qaado. boqolkiiba boqol xasuuqo waay taasna waxa weeye aniga kaligay ma oga laakiin waxa in badan wadada ka warqaba taas diyaaradaha meesha garaacay waxa ka tiro badnaa madaafiicda oo aan la yaabanaa oo habeenadii aniga habeenkan soo hoyday iyo habeenkii laba habeen seexday labadii habeen xataa habeenimada way socdeen madaafiicda marka waxaan garan waayaba meeshan joogo runtii waxaan yiri wax sida la yeelay maxay tahay waa yani waa wax maskaxdayda ka weynaaday inkastoo aan la socdo raadiya bal dowladda markaan joogay in meesha dagaal ka jiro haddana ilaa heer karti inuu yahay marna uma malaynayn marka xasuuqa jiray boqolkiiba boqol oo run ah oo aan ahayn wax laga badbadiyey xaqiiqdii maalintii aan halka ka tegayo oo intaa garoonka laba bomba ka qaaday aan halkaa kala baxayay Djibouti oo magaalada xaaladeeda ogaa rajo badan ma qabin haddana qofka muslimka rajo kama dhammaato oo mar walba inuu rajo qabo weeyo oo ay laga baxayo wax kastoo dhibaato ah inna maca alcusri yusra mar walba waa aaminsanaa marka laakiin aad iyo aad wax tiiraaya iyo xubin badan ayaa mataqaanaa niyadeyda ku jirtay oo la soo koobi karin marna waxaa jiray sidaad ka dhawaaqisay diyaarado hantara oo duqeynta ka mid ahaa berigaas statekii duqeynta Hargeysa ku jiray diyaaradaha hantarka waxaa imaaraadka ku wareejiyey dowladdii Soomaaliya marka waxaad noo sheegtaa imaaraadku maanu dagaalka maanu ogeyn xagan ka socday xilligu ku wareejiyey diyaaradahana waqtigaana noo sheeg dhowr state kale sheegay laakiin waqtiga ahayd toos noogu sheeg waxa u dhaxeeyay imaaraadka markay diyaaradaha bixinayeen iyo dagaalkan waqtigu bilaabanayay iskuma dhaweyn mudday waxay fadhiyeen saldhigga baydhabo ay muddo fadhiyeen in muddo ah dhowr sano ah haddii aanay ka badnayn 5 sano waa dhammeed haddaanay ka badnayn marka dagaalka waqtigiisii iyo mudday u kala fogay marka ma filayo imaaraadka inay dagaalka dartiis diyaaradaha u siiyeen oo markaas ma filayaba xataa inay jireen jabhadaha markaa u shaqeynay dowladdii xilligaa talada haysay markii laydin keenay Hargeysa ee laydin qabanay laydin ka tusay magaalada ma isweydiisay adigu ama ma weydiisay maamulka sareeyay waa maxay sababta ugu weyn ee loo duqeynayo maxay toolay dad Soomaaliyeed oo aan waxba galabsan oo maxay toodo shacaba naftayda jawaab u weydiiyay taas waa sababta loo duqeynayo dadka shacabka iyo dadkii waa isweydiiyey jawaabna waa heli waayey iyo waxaan ogaaday marka cid kaloo la weydiin karana ma jiro hadda xorriyadda idinka waxaan arkaa su-aashaas oo kale maxaa loo duqeynaya haddaan idhaahdo marka waxaa weye tiira laga soo raarici lahaa marka isla markiiba marka waxaa weye sida xorriyaddaasu ma jirin waqtiga waxaan ku weydiinayaa su-aal markii aad Djibouti adiga iyo diyaaradu aad tagteen dowladda Soomaaliya ma dalbatay in dib lagugu soo celiyo waxaan maqlay in taliyaha ciidanka cirka iyo saraakiil la socota inay tageen intii aan sugayay oo aan joogay magaalada Tajuura guriga barasaabka oo martida halkaasaan ku sugayay muddo 6 maalmooda inta la helayo wadan markaasi qaabila marka halkaasaan ku maqlay in taliyaha ciidanka cirka oo halkaa yimid iyo saraakiil la socota markaana kulleyba waa weydiisanayeen laakiin horey waxa ay sii sheegay wasiirka arrimaha gudaha maalintii hore uu tagayay oo yiri ninka haddayna kaa weydiiyaan waxaan leenahay ma hayno ninkaas ma hayno
diyaaraddiina waata bastooladan wata markaana ayadana waa u dhiibo waxa la yidhaha ayadana waa siinaynaa wata marka ninka ma haynaan lehna marka horeba igu sheegay laakiin inay tageenaan maqlay taliyaha ciidanka cirka iyo saraakiil la socod geesta kale wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Kaahin Axmed oo isaguna ka mid ahaa mas'uuliyiintii madasha ku sugnaa ayaa duuliye Axmed Dheere ku tilmaamay haliyay taariikhda qaranka Somaliland ku suntan waxa istilaayay ciidankii dowladdii kale taliska ahayd ee dalka haysatay iyo ciidankii SNMT soo galay ayaa dagaalamayay ciidankii dowladda Soomaaliya raggii maamulayay xukumayay saraakiisha ka wada tirsaneen bay wada ahaayeen may garan waayin aqoontoodii iyo waayo aragnimadoodii ciidankii la dagaalamayay SNMT meeshu ku jira may garan waayin si aanan anaku u garan waayin ciidamadii qaybtan Hargeysa joogay iyo qaybaha kale joogay meelihii ay joogeen unbuu ciidankii SNMT weerartay taasaa waxa ay ka dhigaysaa inaan ciidan lala dagaalamaynin shacab la xasuuqayay marka waxaan leenahay Axmed hawl badan buu qabtay haddaynu reer Somaliland nahay xasuus buu inagu leeyahay qadarina wuu inagu leeyahay inaynu xasuusanana waynagu leeyahay dhalinyaradiinu inaad taariikhda barataanna way u baahan tahayoo dabadeed imika caawa halkan ayaantan idiin joogaayo waa inaad sawir iskala wada qaadaanoo halkana waxaanaan la garanaynin ay idinkaga sawiran yihiin in aad qaadataan aad sawirada garamada Axmed aydunta qaadataan qaar ka mid ah dhalinyaradii goobta ku sugnayd ayaa wasiirka arrimaha gudaha Somaliland ka codsatay in xukuumadda uu ka mid yahay ay sii deyso wiil lagu magacaabo Bilaal Bulshaawi oo in muddo ah ku xidhan Hargeysa kadib markii uu koob kafeeya oo ka samaysan astaanta calanka Soomaaliya ku dhex cabay Hargeysa waxaana wiilkani ay isku deegaan dhow yihiin duuliye Axmed Dheere oo isaga madasha uu wasiirku ka qayb galay loo qabtay wasiirka ayaa waxa uu sheegay inuu aqbalay codsiga dhalinyaradu u soo jeedisay talaabana ay ka qaadi doonto arrinka wiilka Bilaal Bulshaawi Hargeysa waxa ku xidhan inaan yar oo adeer u yahay Axmed Dheere oo hor fadhiya waxa loogu xidhay inuu cabay calanka Soomaaliya dhamaantii dhalinyaradu way ka warhayaan baan u malaynaya abaal loo gashay annagana badbaadisay nolosheeda badbaadisay yaro inamada yaryar halka fadhiya laaleeg inuu Hargeysa ku xidhan yahay muddo 2 bilood oo ugu xidhan yahay shaah kafee iyo badcabto calanka Soomaaliya leh waxaan madaxdeeda sharafta la kacsanaya kaasibo adeerkii baa annagana badbaadiyay idinkuna maanta inaan ka yar ee hooyadii xamar ka soo ooyinto ee tiri agoon weeyaan ay soo ooyiday in fadliga Axmed Dheere ku sii deysaan way gocsi waan mahadsantahay wasiirkii arrimaha gudaha fadhiya inan yar oo dhalinyaro ah oo ka yimid koonfur khaasatan magaalada Xamar ayaa wadanka wuxuu ku xidhan yahay muddo badan hooyadiina in doora ayay soo ooyday waa hooyada aad maalinta badbaadisay baa annagana ma taqaanayay na dhashay wasiirka waxaan ka codsanayaa oon jecelahay inuu halkan iiga jawaabo inan ka yar ma kafaalo qaadaya inuu macaawa sii daayo uu hooyadii ma taqaana si xorriyada ugu tago intaas si common weeyaan arrinkii inankii xidhnaa arrintiisii jaamacaya baan ka wada xidhiidhaynaa taladana waan qaadanaynaa tallaabana waan ka qaadaynaa